hoggaanka guud ee dhaqanka beelaha dega galbeedka gobolka Sanaag, galbeedka gobolka Sool, bariga gobolka Togdheer, bariga gobolka Saaxil iyo qaybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shir maalmo u dambeeyay uga socday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Shirkaas oo ay madax dhaqameedka iyo salaadiintu kaga arinsanayay xaaladda guud ee dalku marayo iyo danaha guud ee beelahaasi. Shirkan oo u socday hoggaanka dhaqanka ee beelahaasi oo maanta la soo gabagabeeyay laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 4 qodob. ugu horreynna waxaa warbaahinta la wadaagay 4 qodob ee laga soo saaray shirka Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abyan oo ahaa xogayaha shirkani ee hoggaanka dhaqanka. waxaa magaalada Burco ka qabsoomay shirweynihii salaadiinta beelaha Muuse Sheekh Isxaaq, Maxamed Sheekh Isxaaq, Ibrahim Sheekh Isxaaq iyo reer Dood. taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 6 ilaa 11kii bishii 6. shirkaas oo lagu lafaguray guud ahaan danaha beelaha kor ku xusan nabadgelyada iyo xaaladaha wadanka ka jira. beelahaas magacyadoodu kor ku xusan yihiin oo kala dega galbeedka gobolka Sanaag, galbeedka gobolka Sool, bariga gobolka Togdheer iyo bariga gobolka Saaxil iyo kililka shanaad. haddaanu nahay salaadiinta beelahaas magacyadoodu kor ku xusan yihiin waxaanu xoojinaynaa dadaalka nabadeed ee laga dhex wado labada beelood ee dhawaan ku dagaalamay koonfur galbeed magaalada Burco. waxaanuna idinku adkaynaynaa in labadiina beeloodba aad nabadda adkaysaan oo raadisaan xal waara oo daacadnimo ku jirto, iskana ilaalisaan wax kasta oo sababi kara in colaadi dib u soo laabato. ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inuu bogiina burcad soo mariyo oo iskiin afgaran siiyo. annaguna diyaar baanu idiin nahay haddii naloo baahdo. salaadiinta beelaha magacyadoodu kor ku xusan yihiin waxay cadaynayaan inaanay dagaalka laascaanood si beelaysan ugu jirin, balse ay ula siman yihiin beelaha Somaliland ee ciidamada qaranka ku wada jira, kuwaas oo ay xataa ka mid yihiin beelaha dhulbaanta. haddaanu nahay salaadiinta beelaha magacyadoodu kor ku xusan yihiin waxaanu ka xunnahay dagaalkii ka dhacay magaalada laascaanood ee sababay dhimasho, dhaawac, barakac, burburba. waxaanu soo jeedinaynaa in dagaalka loo raadiyo xal nabadeed oo lagu joojiyo. waxaanu kaloo soo dhaweynaynaa dadaalada nabadeed ee socda. haddaynu nahay reer Somaliland waxaynu ku caanamaalay wada hadal iyo isu tanaasul, waana waxyaabaha aynu kaga bixi jirnay marka khilaaf yimaado ee aynu ku gaadhnay doorashooyin xor ah iyo nabad ku wada noolaansho. haddaanu nahay salaadiinta beelaha magacyadoodu kor ku xusan yihiin waxaanu madaxweynaha u soo jeedinaynaa inuu doorashadii qabto, isaguna yeedho saamileydii doorashooyinka si looga baxo khilaafka siyaasadeed ee cakiran. haddaanu nahay salaadiinta beelaha magacyadoodu kor ku xusan yihiin waxaanu isla garannay inaanu raadsano saamiga aanu ku leenahay qaranka Somaliland, gobolada Somaliland oo aan la ku duudsii karin isku bahbaatihiin. wabillahi tawfiiq. intaasi kadibna waxa warbaahinta la hadlay Suldaan Muuse Cali Xirsi oo ah gudoomiyaha shirkani hoggaanka dhaqanka, waxaanu ka warramay shirkani. maanta oo taariikhdu tahay 15kii bisha 6 2023 waxaanu halkan ku joognaa salaadiin ka mid ah hoggaanka guud ee dhaqanka ee beelaha Habar Jeclo oo halkan shir uga furmay bisha 5teedii. waxaanu jecelahay inaanu halkan ka bayaamino oo ka sii deyno baaq guud oo aanu kaga warramayno ama kaga hoga tusaaleynayno xaaladaha guud ee dalka iyo mandiqadan gaar ahaan aanu degannahay intaba. marka bayaanka waxa inoo akhriyi doona Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abyan ayaa inoo akhriyi doona bayaanka. Television Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Television ka Saab Burco.